Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada YouTube channelkayga Amina Cooking and Henna. Asxaabta qaaliga ee sharafta badan leh soo dhawaada kusoo dhawaada channelkayga gacmo furan iyo qalbi saafiya insha Allah. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe inoo saar, haddaa hore nooli joogtayna like iyo share iyo comment soo dhawaada insha Allah. Waan idinka soo daahay Amina casriidii aan sameeyay insha Allah ilaa iyo qadadii ilaa iyo casriidii videogan insha Allah bilow ilaa dhamaad ila daawo soo dhawaada. maasha Allah hadda ujeediin waxaa dabkii noo saaran hilibkii maraqiisi waa kana maasha Allah hilibku noo bislaan weeyaa wax yar ayaa ka dhiman insha Allah. waa ujeediin waan sii saaray aheyd waa kana hadda hilibka asxaabay wuu bislaaday laftii hilibku way kala dhici rabaan saa ujeediino bariiskan dalcaneena basashii iyo tuuntii hadartan dabkii noo saaran waa ujeediin bariis iska soo tuuraan samaysanayna insha Allah. waa kaasa basashaan waxay hogaa shiila basashaan basal gaduud waaye basal gaduudka markii la shiilay idaaba gaduud camal sii noqonaysa. haddana waxaa ku daray heelkii iyo qarfihii aan ku soo daray ana bariiska mar walba waxaan jeclaa qarfi heel inaan ku darsado oo caraf ka dhigto. xoogaa insha Allah waan shiilayaa asxaabey soo dhawaada. basashaas inay si fiican ugu soo shiilmato waaye iyo tuunteeda wixii kaleetan insha Allah kor ugu soo darayaa kabsar aan ku daray kabsarta saan la soo jarjaray insha Allah hadhowdii markuu bariiska noo bislaado koray soo maraysa waa laga qaadaale haba iswaalina laha bariiska maasha Allah. haddana xawaajiga isku dardarka oo caraftaan ku daray sidoo kale bariiskan ku soo daray waa ujeediin bariiska xoogaa qaleynaya oon shiilaya bariiska markii oo la shiilo aad ayuu macyaa mid kale ani bariiska waan dhaqaa bariiska aan isticmaalo akaasha waaye bariiska waan iska dhaqaa maasha Allah waliba biyo la dhigaa ilaa nus saac biyo xoogo qandaca la soo dhigaa kadib aan sii shiilaa waa kana hadartan wasa fiican u soo shiilaya markan shiilo kadib le maraq kor ugu soo dari doonaa. hadda maraq digaagan ku daroyaa oo jeediin maraq digaagiyan hadda kor ugu soo darsaday. waa kana maasha Allah si fiican inoogu shiilmatay insha Allah maraqeen kor ugu darayaa. maraqii waan ku soo daray hadhow kabsartaas oo dhan koray soo aadaysaa insha Allah tartiib la iskaga qaadaysaa. waa kaasa asxaabta qaaliga bariiskeeni sidaa way diyaar noogu yahay hadeertaane intuu noogu bislaanayay hilibkii u umaanay maasha Allah. basashii kabsartii aan soo jarjaray iyo wixii carfis aan kor ugu soo daray hilibka insha Allah waan shiilayaa asagana ila daawada saliidaan kor ugu soo daray waan gidgidinayaa koraan jagjag digsigu siiyey maasha Allah. waa kana markaan soo gidgidiyey hadeertaane intuu noogu soo shiilmo ayaan sugaynaa inta le insha Allah hilibka lagu soo gaduudinayaa lagu shiilayaa. markaasaan dabkiya maasha Allah ujeediin bariiskana waa kana hadeertaan oo noo bislaaday hilibkeenina waa noo shiilmooyaa insha Allah waa ujeediin asxaabey. hadhow saliidaas kuley meesha le loogu tagaa muhiimadda waxaa waaye inaa hilibka lagu soo shiilale waaye kadibna digsigaan ugu tagi doonaa insha Allah. bariiskan asxaabta qaaliga waa kana laba kalaraan kor ugu daray kalarka gaduudka iyo kalarka cagaarka aniga mar walba labadaas kalar inta badan aad u isticmaalaa waan jeclahay insha Allah. haddana bariiskana diyaar u yahay asxaabta waa kana qadadeeni maanta Amina ay sameynaysay waa ujeediin bariiskii iyo hilibkii salaatadii aan ka maqnayn liintii bisbaskii waa kana hay qadadaan aan diyaarinayaa insha Allah. markii la soo qadeeyo iyo jikada nadaafadeeda isku soo noqonaynaa insha Allah tacaala ila socda. haddii uu idin cajab geliyay mar walba fiidiyowga noo sheer gareeya asxaabteena iyo faamilkiina la sii wadaaga insha Allah. waa kana hadeertaan asxaabta qaaliga qadadii waa la soo cunay jikadii yaa la imaaday jikadii qadada maanta lagu karinayo
in la nadiifiyo soo maaha oo nadiif laga soo dhigo insha Allah waa kana hadeertaan kuukarkeen kor ka dhaqaaya ani mar walba kuukarka geedaas kor waan ka qaadaa waan dhaqaa markii waqtigeeda la joogin saas ayaan u dhaqaa laakiin ugu dambeyn xataa geedaas waan ka qaadaa waan tirtiraa meesha waa kaasa sida u jeediino mar walba jikada inaad nadiif ku ahaato ayaa fiican marka cuntada karisid haddii kaleeto waxaa waaye jikada ma u soo xiisid soomaha waa inaan nadaafadda waa shay qaali maasha Allah kuukarkii aan dhaqaaya waa u jeediin wasaqdii wixii ku jirtay ka qaadaya geedihii waa kana sidoo kaleeto ka soo bixi waan dhaqay geedaas wasaq u dhagdhagtay yeeshtaan haddaada mar walba dhaqin hadhow marka dambana ma ka foqeysi because haddii marku dhagto waxaa waaye meelahaas hadda aan taabanayo u jeediino waxaa ku kariska dabka mar walba ay saaran tahay cuntada lagu dul karinaayo waxyaabo ku dhagaa jiro haddaadan markaas ka rogin xataa u qaado midi ka fuji markaa ka fujisid mar walbana iska dhaq maasha Allah markastoo cunto karisid xataa maalin dhaaf hadda geedaas si fiican iskaga dhaqdid waxaa waaye kuma dhagaayo waxna ma kaaga dhagaayo hadeertaan alaabta ayaan dhaqooyaa u jeediin kastii qadada lagu cuno aan ku diyaariyay ayaan mafka siinayaa waa kana geedihii jikada waa noo soo qalajiyey waan ku soo celiyey waa kaasa sidaas u soo nadiifiyey maasha Allah kuukarkeennii kor ilaa hoos nadiif aan ka dhigay qaybta hoose xataa oo kor laga arkayo waan tirtiray qaybta dhexda aniga maalin walba ma dhaqi marka ayaan jooga ayaan iska nadiifiyaa hadeertaan jikadii waa u jeediin alaabtii waa la soo dhameeyey jikadii istiraashadii wixii gacanta lama marinaya jikadii waa kaasa sidaas nadiif u tahay insha Allah casriyaheena ku sameysan doonaa ila socod insha Allah casriyaha aamina ee sameyn doonto maasha Allah jikadii waa kaasa gees ilaa gees nadiif waaye marka jikada cunto ku karkarisid iska nadiifisid korkaas ma jeedin maasha Allah ukun ayaan saartaa baby diriste hoos daagili wala soo bixinaa leh xabad dhulka la iska dhufana ilmo leh maahan oo ilaa deestay marka korkaas iska saaraa ukunta sida ee loo jibinin ukunta ur badan tahay mar meel ku jabto ma jecli waa kana jikadeeni nadiif maasha Allah ina cunto lagu karinayaa loo maleeyaa meeshaan cunto lagu kariyaa isdhahayo insha Allah hadeertaan qaybtii casriyaha ayaan imaanay hadeertaan waxaan ka bilaabeynaa insha Allah burka ciyaalkaygana jecel yihiin burkeero kuskuuska ayaan sameysanaynaa insha Allah ciyaalkaygana way jecel yihiin markaa u sameeyo maasha Allah caanaha macaan kor ugu daro aniga caanaha macaan horta inta badan waa sameystaa janalkaygana anoo sameynayo wuu ku jiraa rooti kale nooc kale anoo isticmaalayo laakiin kan suuqa yaali kan ani aan sameeyo horta isku mid kale waayo waxba isma dhamaano laakiin hadda kan suuqa yaala inta badan mar iska soo gataa hadda ka gaareen oo kala maan soo helo waa kana hadda cajiinkeennii waa u jeediin waan kuskuustay fiidiyowga haddaadan laga soo gaagaabin aad u dheeraanaya markii la tusaayo gooni waa insha Allah laakiin hadeertaan maadaama rootiinkeennii iska yahay insha Allah waa kaasa cajiinka hadda waan dhigay ee ahayd soo qamiiray ila soo ark insha Allah waa kaasa maasha Allah markuu qamiiray soo isku soo dhigay fiiri maasha Allah wuu soo qamiiray kor hadeertaan waxa ka marmarin doona insha Allah caano dadka qaar caani ukun isku darsadaan hadii jeceshahay isku darso laakiin aniga caano kaligiis ayaan mariyaa waxa soo qaatay baaquliga siriska caanaha ayaan dushaas u soo marinayaa si tartiib ah caanaha dadku bataxta wax ma ka dhiway burka saamar walba dhuuqay sooma foornada marka la geliyo waxaas caanaas dhan ma la arkaayo kulliyan soo marinayaa caanaha insha Allah kadibna furanka ayaan gelinayaa casriyeeni sidoo noogu soo baxay insha Allah waa arki doontiin markii la qaday marmar waxa la iska baahan inkastoo habeen iska noqonayso hadda waa kana waxaan soo aaday miiska dhexda waa hadeertaan insha Allah miiska qadada maadaama la iska fadhiyo hadda waxa la maroyaa galabtii 4 camal adiga 10 saac iyo 40 meelahaas waaye jaam mugdi noqoto nalka la iska soo shiday sababtoo meeshaan maqribkii waqti hore iska soo galaayo hadeertaan waa u jeediin asxaabey caanaha macaanka aan kor ugu soo shubay insha Allah saxankan waan ka bedelayaa waa kaasa u isgagaaray waa kaasa saxankii waan ka soo bedelay saxan kale to miiska aan ku saara kara ayaan soo qaatay ma sha Allah insha Allah miiskeeni aan
ku casriyeysa lahayn ayaan geynayaa. Istiraashadii gacmaha ayaan sidoo kaleeta keenay. geedkaasna waxaa noogu jiro xalwo yar iyo buskud iyo sisinta oo dheerdheerte maasha allah. waa kaas ahe insha allah. meeshaan waxaa noogu jiro qaxwaheeni oo ujeediin. ciyaalka xataa qofkii shaah raba shaahiisa la siinayaa. waa kana burkeeni sidaan qurux badan oo noogu soo baxay maasha allah. casriye aamin ay diyaarinayso waa kana asxaabe insha allah tacaala. fiidiyogan waa kaasa aydin kugu soo talagalay. waana mahadsantihiin. soo dhawaada mar walba insha allah. janalka asxaabe haddii aad ka heshaano subscribe inoo saara. nasoo dhiirigeliya insha allah. dhiirigelinta waa xaggiina. anagana insha allah fiidiyooga jeclaysatiin ayaan idiin soo geli doonaa insha allah. nasoo dhawaada. fiidiyoogan halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa insha allah. haddii uu idin cajab geliyo fiidiyoogan subscribe, like, share iyo commentigiina quruxda badan insha allah waa ka arki doonaa. dadka cusub waa nagu soo biiraya. soo dhawaada insha allah. waa idin soo dhaweyneynaa. intaan fiidiyooga xiga ee kale aan kusoo kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.